فيها ولا سومال لنا ولا مدحسي بريام وطن هذا هيتي بربطين فالواحد فاهمين وقت حسا كو شركي كوجود بريه أديس كل شيء ذيك حكومة الفدرالية الصومالية يحيى كل هذا الشيء يلا بقى ميوتشلا صحيح adiga laftar aan adiga wasiirka waqtiga ahaa inaad u saxeexdo u baraatay hawada Soomaaliland in laga maamulo magaalada Muqdisho ama xukuumadda federaalka Soomaaliya laba soo loo kordhin ma soo tahay hortayna de kulli idinka warqad baadi doono dadka in wax loo biyeemino fiican tahay horta xagga hawada iyo maamulkeeda iyo khilaafkeedu waa soo jiitamay إلا لبضي كونية طبعاً كي والسعودية ماشي أنا دي لبض دولة بيننا هايو تصوماليا إيو صوماليلا تصوماليا والدولة لا قونسية هايو الدون كدوا قونسية دولة إني كرسي قرامة مدوبة صوماليا نقفر ده إنه قلنا وحنا هاي دولة دايس دستي يدو ساقونسن ولا لو قراب لا يهيون إنه نو كون أكسن هيون دم يسنى دمان شروطي كحنا ضل مدح بنان إلا سيو أو دورشة يودم بس واحد المام يسهل كأنه قاعد سنة ولا قاعد ما ينص كونفورت الصومالي لكن هو نصيب ضرة إن الدنيا ده يو قرمة من دوبي يو الدنيا هو ينجح ليه أو أي باختلافه فيان دولة الآن نفي كشرين هل كي تنف كشرت أي تغيير الهاي أنا وأنت نشوف حلقة iyadoo saa u soo jiitantay khilaafka hawadu oo Istanbul 1 iyo Istanbul 2 iyo kuwiga horeeyay runtii wasiiradii iga horeeyay ku hawlgaleen waxaan isku dayay dadaal kasta aan u galay inaanay suurto galin in ay lagu wareejiyo hawada Soomaaliya koonfurta Soomaaliya waxaan ku khasabnay xiriirkii naga dhaxeeyay Montreal ee aanu sheegnay inaanu xorriyadeeda qaadanayno UN-tana aan la shaqeynahayn ay ka maadaama hay'addu intay dalkana ka saarayno systemka iyaga iyo habka iyagana ku shaqeynayno hawadeedana maamulanayno haddii ay u xaqliso ay u xaqliso inay gacan siiso oo ogolaato oo fududeyso dawladda federaalka Soomaaliya inay hawada fargeliso warqad bay igu soo jawaabeen ay leeyihiin anagu mandate-kaas mandate-kii waxa weeye 2018 markaanu dhamayno qalabka taawarada oo imika qaar warshada ku jiraano testing imika laga qaaday san xogta ku hayo markii ugu dambeysay intaan xilka ka tagin ay tahay lagu rakibo barbara garoowe muqdisho meelihii markaa loo qorsheeyay mashruuca 3 sanadood sheegay markaas anaga wada hadalka iyo doodu taala ciidan ku wareejinayna iyo sababka loo wareejin laakiin imika ciidan ku wareejinayna ma jirto iyaguna pressure bay saareen 3 jeer buu wasiirku ka federaalka Soomaaliya gaadiidku ku noqday Montreal way u suurto gali weyday awoodan u saaray iyo dadaalkan u gelinay inay la wareegaan khasab waxa ku noqotay in wada hadalkii dib noola bilaabaan ma aha wax ciyaar ku yimi ma aha wax iska dooneen ما هي واحد سيدك هاي ما دونه حيس النوق بيننا الله الله وواحد من برشة كي يدزال كانوا سمعنا عن سلاء وأنا سيد ضره ضدكم يلاها كله حبلا سيد حلو وريش واحد وناسين لقى جرابه وحلقة فتي هذا ندزال كاس سمعنا هراء شيء سوى جاري لهاين أول صيحان لاين أي كا يو دولة فدرالكو إني أي كا كوريش سيجا أما يكوريش سي ما يدعين حفلة دي ما أنت دوينا أي كا وقايب كم هاين كومي وريشين إلا هذا أي كا عنده كويس nimankaas waxay sameeyeen waxa weeye inay dadna wada hadalkii ay barashar kaanu saaray qasab noqoto inay nala bilaabaan waatan isugu tagnay Addis Ababa wasiirkeena hore arrimaha dibadda Maxamed Umar Cabdullaahi Umar Goobjoog buu ka ahaa safiirka Ali Shombe Addis Ababa inoo fadhiyay Ethiopia inoo fadhiyay Goobjoog buu ka ahaa agaasimaha waxa duulista oo ninka ugu khabiirsan maxaan ku dhahay hay'adda duulista wasaaradda imika loo bedelay سقير وجوب شوك بكاها وحد ما نقول هذا الله إحنا ما نكلا سياحا وحشيسة سواء أن أصيحنا طلبا ومثلين قرن مدن ومثلين تاسان وهالجمين واجبنا صارم بها عندنا وجمان أنا باشنا هين عندنا ما أنا نسكت سهين وحيد حق دستوريا ومد إرادة الشعب كيمي أنا وأنا وكيل كاهن مدحويني مركز شوقي إن نقبل ضونه سفكست يطلع بكست وحن صور تقل إنه وديارنا ما أنت هدول الله الله فرماش وديار ده هذا مرة والله الله حتى أنا نديد هين إنه نقول نقطة إنه فايلات قرينا هو ده وان هو بس صقير هدو رايد ناو شيل الله هذا ديار ده هذا مرة والله الله كريه قلب كويسته وحنو كتبه بالشينا إنه أود اللي سومالي هو ده هان كريس
wixii ka dhiman waan aaminsanahay talana waan ku biiriyaa kama gacan lii waayo waajib saaran weeye xukuumadda timina waa taydii xisbiga joogaana waa xisbigayga marka meel aan wax ka radaa ma jirto wixii document iyo heshiis iyo correspondence iyo email iyo xiriir aanu galayna xafiiska faylashan ku wareejiyay weeye mid walbana siisaan ugu sharaxay Dr. Sacad oo wasiirka arrimaha dawladda runtii waan ka wada soconay oo labadeedu anagoo wada soconna ayaan madaxweynaha arrinta u bandhignay madaxweynihii hore warqad baan noo qoray Michael Keaty oo ah wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya aanu dacwadeeda u gudbinayna arrintaas arrinta soo korodhay hadaba waxa weeye intii doorashada aynu ku jiray nimankaasi qalab bay afduubeen ku socday Nairobi oo ay kaawal ahayd ay kaawna isku qabsadeen qalabka Nairobi loo waday in lagu xoojiyo maadaama ay ismaqli waayeen diyaaradaha maraya badweynta India iyo maraya iyo dhinaca Seychelles ay ismaqli waayeen towerka Nairobi qasab waxa noqotay in qalabka la upgrade gareeyo sidii ka soo baxday shirkii India ee lagu recommend gareeyay lagu taliyay qalabkii loo waday way afduubeen 3 container bay ahaayeen shirkad Talyaani ay u direen processkii bay bilaabeen ma ha qalab dhameystiran qodobka meesha markaa ku jira waxa weeye marka tan waxaan isleeyahay waxay uga jeedaan wana markii tobnaad ay yiraahdaan hawadii baan loo wareegay 9 jeer hore aan 5 anu ka jawaabay baa jirto YouTube iyo TV-yada ka helaysa dil lama wareegin maantana tiyum bay ku celiyeen ilaa haddana ay ka ahayd hawada gacanta ku haysa ilaa la gaariyo transitionalka mashruuca dhamaanay 2018 su'aashu waxa weeye waxa tawaabishan Somaliland haddii ay dhacdaba in ay kaayo ku wareejiso oo UN ay raacdo maadaama iyagu dawladda aqoonsan yihiin inay ku wareejiso iyaga waxaan isleeyahay anu Somaliland talaabooyin ka qaadi lahayd way cad yihiin mas'uuliyiinta joogaana way ka dharagsan yihiin oo wax ogaal anana waa la joognaayo kama maqnin xilku ma aha marka ku soo ku fadhiya dalka iyo qarannimadu oo wax tacab badan inaga galay u baahan in ninka maqan iyo ninka nastay iyo ninka jooga ay wada ilaaliyaan waajibna saaran weeye aqliyad iyo fikir iyo cilmi inta waa la garab taaganahay chief pilotka Cabdirodal iyo xukuumadaba wixii aanu talo ku biirinayno waxaan aaminsanahay waa talaabooyinka la qaadaya waa wax u cad weeye wax halkan laga sheegayna runtii maaha waxa si waajib ah in UN horta loo gudbiyo sidii hore oo tikraaran loo wargeliyo si iyaguna u ogaadaan haddii ay aqbalaan inay qalabka ay waqti afuufayaan ay u aqbasho ay kaawo inay dabeedna ay ku shaqeeyaan inay noqoto qasab inay Soomaaliland hawadeeda iyaduna hanato taasina waxay keenaysaa violation inay dhacaano hawadii khilaaf yimaado diyaaradii dhan walba laga hadlo taasina waxay keenaysaa in diyaaradu istaagaanba dhamaantood Soomaaliya oo dhan dib uun baa haddana u keenaysaa in la wada hadlo marka halkay dhigta halka ka taabanayaan qolada koonfurtu waxaan isleeyahay Peter waxa fiican in saaxadda wada hadalka tii anagu aanu bilownay oo qodobadan ku heshiinay ahayd oo caddahay oo ahaa technical committee labada wasaaradood in la saaro sida loo qaybsanayo loo maamulanayo hawadii ee looga soo wareegay ay kaaw iyo ayata in laga heshiiyo in la isweydiiyo habkii dakhliga hawada laga qaado ma had diyaaradahan xaq hoose maray waa kuwa hawada maraya sare dakhliga ayata ka qaado in sidii loo qaybsan lahaydna la isweydiiyo marka farsamadii sidii loogu heshiin labaanu laba xubnood oo gudida ugu sareeyay aanu saaray mid wuxuu ahaa Siciid Saqiira ninka la yiraahdo ninka kale waxa nin farsamo yaqaan oo ka socday wasaaradda gaadiidka Soomaaliya wax qoraal ah iyo heshiisa termiskii ay qolada hay'adan xadinaysa qortay mooyee oo aanu kala saxano leenahay waxa lagu wareejiyay waxa la siiyay daadeer meeshu waxa weeye hadaa joogi lahayd halkan ku wada hadlaynay waxa oran lahayd abaal weyn bay Somaliland gashatay oran lahayd laakiin dawaa nasiib daro dadka meelaha kale dawladdu hore asxaantiyo dawladda waxa si ma jiraan nimankaasi waxa weeye dadaal iyo isku day bay wadaan inagana isku daygii waa inoo furan yahay horena waa inoo dadaalay wixii qalabaha waxaan isleeyahay maanta wax yar baa ka dhiman oo waa Soomaaliland waa u diyaar cid hawadana inagu haysato oo inagu faragelinaysa ma jirto khalkhal hawada ku dhacun ba aakhirka haddaan miiskii wada hadalka la isugu iman xal laga gaadhin waxaan isleeyahay markaa sababtay maalin walba tan u sameeyaan maanta tan waxay u sameeyaan isleeyahay horta qalab bay daxriga ka jireen hawada lama wareegin haway la wareegeen oo ay kaawo intay soo fadhiistay tiri waxaanu sameeyay official handover oo hawadii baan ku wareejinay Soomaaliya qalabkii oo dhan ma jirto laakiin way dadaal ay sameeyeen inagana waajib way dadaalkaas waa socday waana la wadaa imaka kaliya waxaan isleeyahay waxaan imaka u soo celiyay waa barashar siyaasi oo gudahooda jira oo farmaajo iyo dawladdiisa lagu hayo ama baarlamaan ku hayo federaalku ama cid kale ku hayse ayuu bay isleeyihiin indhaha dadweynaha u jeediyeen wax qabad iyo wax sameeyeen oo hawadii la soo wareegteen oo wax weeyo man isleeyahay waa
cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dabada lama gaadhayo waa mid gudahooda taalla ayuunba inagana saameyn nagu leh laakiin waxaan isleeyahay dowladda xukuumadda madaxweynaha axmed waxaan leeyahay maxaan ku dhahdaa muuse biixi cabdi iyo dee wasiirka arrimaha dibadda xilliga aanu hawsha ka wada soconino joogo dr sacad ragga wasaaradda joogay meesha hay-adda laga dhigayna dee waxaan isleeyahay waa rag xogogaal ahoo dee saqiira waa joogaa cabdirodal waa nin khabiirahoo waxaan aqoon iyo qalabka la isticmaalayo wixii ka qabiyaa meesha lafteeda runtii aad baan ugu faraxsanahay umana baqanayo somalilan kaalinteeda anugu si cadna waxaan u sheegayaa ma jirto inaan u saciyino annagu wax u soo dhicino somalilan mooye sabab aanu cid kale ugu xaglaynaa adeerteen mustaqbalkeeda carruurteeda iyo aniga iyo somalilan oo dhan baa leh see u dhici karaysa taas ma dhacayso marka waxaan caddaynayaa un shirkaana waa loo dhammaa shir albaab hoosti laga xidhay maahee dee wixii kii hore ka soo baxay iyo kan dambe wixii ka soo baxay labaduba dee madaxweynaha iyo madaxtooyadana waa u gudbinaynay dr sacad oo wasiirka arrimaha dabaddana waa la socday dee wasiiradu iskama dhaqaaqaan oo ma tegayaan oo odhan maayo intan cararaabaan shir gelaya dabeedna waan iska soo noqonaya laakiin waxa weeye wax wuxuu ku baxayaa ujeeddo leh la isla qaatay uu kaga qayb gelaya wuxuu la soo noqdana ciddoo accountable iyo la xisaabtamaysa dee warkeeda waa siinaya guddigii farsamada aad kaga dhawaadsay mudane farxan wax warbixinoo dambe bay soo saartay waxaan filayaa waa inagii doorashada gallay nimankanna waxaan isleeyahay marka fursadda ka faa'idaystay waxa intii doorashadan ku jirray weeye taa waxaa weydiin doontaan siciid saqiiraaq xaggeenna qaabilsanaa runtii intii aan joogay anugu xidhiir dambe ma jirin maxaan ku dhahdaa innaguna doorashaa baynu golo 2 biloodoo 3 biloodoo dee iska wareer ah oo aan shaqo iyo dee mas-uuliyadba la haleelin ba haydoo dee dadku iska tafaxaydan yahay marka taas may in Soomaaliya aan ugu guulaysan goobtii lagu maamulaha iyo qalabkii lagu maamulaha boqolkiiba 5 ka mid ay la wareegeen sidoo kale ay rakibteen ay sameeyeen sax baatay sidoo kale mas'uuliyiinta maamusha hawada oo tirada lagu sheegay 35 sanood 3 ka mid ah joogay sidii la sheegay Soomaaliya dadaalay wadaa hawadii absolutely sax baatay inagu wax dadaal ah oo ku dhiirinayso inaynu kaga gaashaamana taas oo u jeedinayso mas'uuliyadda hadda xilalka haya niyajiga horta xukuumadda baan ku wada xisbiguna waa xisbigayga talinaya waxaan u sheegayo waa la garab taagnahay halkana ka sheegi maayo maxaan ku dhahdaa chief pilotka maareeyaha cabdi pilotka ma kala fogin runtii time to time waanu xidhiidhnaa waxa la wuxuu talayga baahdo waxa weeye qasab bay igu tahay inaan ku darsado waa runtaa dadaal bay wadaan dadaal is-indhatir ah oo aan isleeyahay inaynu aakhirka hadday siday u wadaan ku wadan waxaynu noqonaynaa South Korea iyo North Korea waayo waxay ahayd in wax ka weyn oo masiiriyana dhex yaalla oo ah inaynu ka wada hadallo qarannimadeennii iyo kala goy haddii hawo yar lagu heshin waayo sidahay cankamuda waxaan isleeyahay aakhirka dee waa colaad bay keenaysaa iyo isnac iyo kala fogaanshiyo oo xitaa wixii masiiriga ahaa kalaan laga wada hadli karahay marka runtii ayaan darro iyaga ku socoto weeyo ay gacmahooda isku jarayaan waxaan isleeyahay waxay ku hafteen oo siyaasadda muqdisho ay ku hafteen bay isleeyihiin indhaha dadka dhinac kale u jeediya anu taasaan aaminsanahay laakiin innaga haddana inaynu ku seexanno maahee waajibkayna saaran waxa weeye inaynu ka tabaabasho horena waan uga tabaabashaysanay ilaa Singapore waxaan u tagay wax kale ma ahay waxay qalabkii hawada aan ku maamul lahayn la keeno maantana wixii dee inoo taagane dhammaystir u baahan waa ka wada soconnaa maxaan ku dhahdaa hay-adda duulista iyo madaarada halkanna waxaan ka sheegayo dee maaha oo waa wax u gaara maaragtay waxaynu iskaga celin layn weeye ma haddaynu halkan kusoo bandhigo idhahdo waxaasaa aan idhi waxaasaan idhi waxaan u malaynayaa qurux badnaayo dee xilkiina ma joogay makoo inaan ku ixtiraamo cidda joogtana waajib saaran weeye